بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة الكسر وهذا برامجك فلاقينتا عيارها عياري حالي دعي العيار هوريالك إنجليزكا كل ما كتسن إلا يوحل عياري شن كل ما سين وحكم إذا كل ما أدحي سبضني أرسنال عيارة كوحدة أستون فيلا سيدو كلا ليفربول كلن آد وحماسة بنا إلي عيارة كوحدة نيوكاسل مان سيتي أيات وشاكتي كوحا كلا بريمير ليج إن سنة كاني أيغانا هوريالك إنجليزكا يسدحي سدونان أو مركز دحاد حرير أي كوغولي سدونان haddayna dul marno kulamada ciyaaray waa Bournemouth oo Bridge Ever kula gashay gurigeeda kooxda Wolves sidoo kale Arsenal ayaa 2-1 dirqiga kaga badisay kooxda kubadda cagta Aston Villa walow Arsenal ay kubadda iska haystay inta badan balse Arsenal ayaa la sheegay inaysan wadanin waxa la yiraahdaa boodkii ama kabihii ay gool ku dhalinayd gool badan ay iska qasaarisay daqiiqadii 30aad Gabriel Jesus kubadda oo Porteriga iska soo saaray ayuu ku celiyay uuna ka dhaliyay sidoo kale Arsenal ayaa laga bareejay waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Douglas Luiz oo maanta la xiriirinayay inuu Arsenal u saxiix doono oo maanta oo ah maalintii ugu dambeysay suuqa iibsiga ayaa gool ka dhaliyay 74 daqiiqo goolkaasi oo ahaa gool koorna ah oo uu soo qaaday ciyaaryahankaasi ciyaarta 5 daqiiqo inta aan lahayn 3 daqiiqo kadib Martinelli ayaa Arsenal u dhaliyay goolka ay ku badiyeen oo 2-1 ciyaarta ka dhigay saas ay Arsenal ku badisay 5 kulan oo xiriir Arsenal ayaa 5 kulan oo Real ka tirsan ciyaartay xilli ciyaareedkani 5 kulan badisay sidoo kale Man City ayaa 6-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta Nottingham Forest ciyaar hal dhinac iska ahayd ay Man City ku raaxaysanaysay garoonkeeda iyadoo ku ciyaaraysa ninka la qabanayay la yiraahdo Haaland ayaa qaybtii hore ciyaarta wuxuu dhaliyay hat-trick 12 daqiiqo markay maraysay goolkiisa koobaad 23 daqiiqo goolkiisa labaad 30 daqiiqo goolkiisa labaad 3-1 ayaa ciyaarta lagu nastay waxa la kara ciyaartaas waxay ahayd Haaland versus Nottingham Forest qaybta koowaad ciyaarta waxay dhaxmaraysay ciyaaryahanka Haaland yiraahday Nottingham Forest 3-1 ayaa lagu kala nastay markii la soo noqday City waxay heshay 3 gool oo kale Cancelo ayaa dhaliyay 50 minutes markay maraysay ama 50 daqiiqo Alvarez ayaa 2 gool dhaliyay ciyaartan 65 daqiiqo iyo 87 daqiiqo 6-1 saas ay Man City ku badisay Man City ayaa la qabanayay xilli ciyaareedkan iyadoo Bridge kaliya gashay kulan 4 kulan ay badisay Real ka 5 kulan oo ciyaaray sidoo kale ciyaaraha kale oo waxa kamid ah xiisaha lahaay West Ham oo Bridge ku qabatay kooxda Tottenham hal iyo hal ayay galeen Tottenham weli waxay kamid tahay kooxaha kaalmaha hore u jiro horyaalka Ingiriiska ilaa haddana dhinaceeda dhulka lama dhigin 5 kulan kamid ah ciyaar 3 mar oo ay badisay 2 kulan barbara ayay gashay Newcastle iyo kooxda Liverpool ayaa wada ciyaaray Anfield ayuu ka dhacay kulankaasi kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa ku hormartay goolka ciyaaryahankooda cusub ayaana u saxiixay goolka 33 daqiiqo markii ciyaartu maraysay ninka la yiraahdo Isaac ayaa kulankiisa ugu horeeyay ku furtay goolasha wuxuuna u dhaliyay kooxda Newcastle hal iyo eber ayaa kan bii hore lagu kala maray Firmino ayaa ciyaarta barbara ka dhigay qaybtii labaad ee ciyaarta hal ayuu ka dhigay ciyaarta oo lagu daray 5 daqiiqo balse referee soo go'aansaday inuu ku sii daro daqiiqada dheeriya maadaama ciyaartoyda qaar ee Newcastle ay isku dayeen inay waqtiga lumiyaan balse markay maraysay 98 daqiiqo ay dhaaftay 5 daqiiqo xataa lagu daray dheeraadkaahi ayay Liverpool gool heshay waxaan u dhaliyay ciyaaryahanka da'yarka ah ee la yiraahdo Carvalho Fabio Carvalho ayaa u dhaliyay goolka guusha kooxda kubadda cagta ee Liverpool dad badan oo rajeynaya Liverpool in Bridge lagu qaban doono oo ciyaarta sugayay in ciyaarta lagu adkeeyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo gambar u dhigtay ayaa gambarkoodii inuu khasaare iska daayay gambarkii uu la jabay ciyaartaas ay Liverpool badisay 2-1 ku badisay si dirqi ah Liverpool ayaa xaalad fiican ku jiray xilli ciyaareedkan iyadoo dhammaan kulamada ciyaarta 5 kulan 2 kamid ah badisay 2 barbara gashay kulan laga badiyay waxa jira sidoo kale kulan u dambeeyo kulamada 5 kulan horyaalka ugu horeysay waxa jira kulan ka haray kulankaasi oo Leicester City soo dhaweey doonta Man United oo maanta oo Khamiis la ciyaari doono kulankaas ayaa soo gali doona 10 fiidnimo xilliga geeska Afrika Finland daawada saadaalka bixi kulankaasi Leicester City Man United wuxuu ku dhamaan doonaa marka haddii aynu eegno markana kala horeynta horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal ayaa ku raaxaysanaysa kaalinta koobaad 15 dhibcood ay leedahay 15 kulan ciyaartay Man City ayaa 5 kulan ciyaartay 4 kamid ah badisay midna mar badax gashay 13 dhibcood ay leedahay Tottenham ayaa 12 dhibcood leh oo ilaa hadda dhinaceeda dhulka la dhigin Brighton ayaa kaalin afraad ku jirta oo leh 10 dhibcood Liverpool ayaa shanaad soo tigsatay oo leh 8 dhibcood marka aynu eegno kooxaha ilaa iyo hadda aan laga badin horyaalka Ingiriiska tira ahaan waxay gaarayaan kaliya waa 3 naadi ilaa hadda dhinacooda dhulka aan la dhigin waa Arsenal Man City iyo Tottenham kooxahaas dhinacooda weli dhulka lama dhigin laakiin inta kale oo naadi ee horyaalka Ingiriiska tirsan waa dhinacooda dhulka waa la dhigay oo laga badiyay
Man United ciyaari doonta caawa 12 ay ku jirtaa kama ugu hoose horyaalka waxaa ku jira Leicester City oo 1 dhibic leh, Aston Villa oo 3 dhibcood leh, sidoo kale Wolves oo sidoo kale leh 3 dhibcood. kama ugu hoose kooxa ayaa ku jira horyaalka marka aan eegno kala horeynta qaybta hoose. Yay kula tahay daawade in horyaalka Ingiriiska ay ku guuleysan doonaan, yayse kula tahay in kaalmaha ilaa 4 ee lagu soo baxo horyaalka Champions League ay gali doonaan, sidoo kale top 6 ayaa ku dhameysan doona kaalinta 5 ilaa kaalinta 6 xilli ciyaareedkan. waad ku mahadsantahay daawashada barnaamijka falanqaynta ciyaaraha oo aan maanta idinla socodsiinayay. fadlan janaalka subscribe saar haddii aadan ku tixnayn, sidoo kale like saar videoga, siina share garee si asxaab fara badan u gaaro.